maalmaha adduunka ku soo mara maalmihii ugu qaalisana ayaa ku soo haya ilaahay baa ku dhaartay wal fajri wa layaalin 'ashr layaalil 'ashr tobanka ilaahay uu ku dhaartay oo si gooni ah uga doortay maalmaha kale iyo habeenada kale waxa weeyaan ahamiyad arrinkaasi uu leeyahay wayna soo guuriyeen ahlu cilmigu inay yihiin tobanka maalmood ee bisha Dhul-Hijja ugu soo horeeyay ilaahay wuxuu leeyahay yashhadu manaafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayaamin ma'luumaat maalmo macluumaad oo la yaqaan ilaahay inay xusaan maalmahaas macluumaadka waa maalmahaas ina soo haya nabiguna wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam ma min ayaamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر مجران مالمه عمل dhexdooda la sameeyo oo wanaagsan oo ka fadli badan yahay ilaahay xaqiisa looga galgacayl badan yahay maalmahan iyaga ah saxaabadu su'aal bay weydiiyeen wala al-jihad fi sabilillah jihadka ilaahay wadadiisa lagu jihaado miyuuna maalmahan ka fadli badnay markaas nabi yiri wala al-jihad fi sabilillah jihadka ilaahay wadadiisa lagu jihaadana ma gaarayo hal qof marka laga soo reebo illa kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bi shay nin baxay naftiisa iyo maalkiisa labadaba jihadka geeyay wax ka soo laabtana ayna jirin maalkiisana waa ku gacan galay asaga naftiisana waa ku gacan gashay ninkaas fadliga ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ayaa gaari kara maalmahan iyaga wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wasalaam ma min ayaamin a'zam 'inda Allah wala ahabbu ilayhi min al-'amal fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr maalma ilaahay agtiisa ka weyn badan amal la sameeyo looga jecel badan yahay ma jira maalmahan fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid maalmaha dhexdooda waxa badisaan dhikriga ilaahay takbiirta الله أكبر تحميد الحمد لله تهليش لا إله إلا الله كلمات كاس ذكرك إلهي مع المها نحدود الضديع ما دام مع المها إلهي أكتسوقوين أيه مع المها وحا كتر يوم عرفة وحا كتر يوم النحر وحا كسي دنبيسو كحيكتا ما لنتكو يطمنات يوم القرل والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن ما المها إلهي أكتي سوحا أقوين ما لنت يوم النحر وما لنت طبنات وعيد وحولها اللقالها والدنيا الدافه ديق الضادين أيوه إلهي دتي الله الضادين أيوه وما لنت عملك حجك ugu balaaran yahay ugu weyn yahay waxa ku xiga maalinta ka dambaysa yawmul qarli yawmul qarli waxa loogu magacaabay waa maalinta sugnaanta xujaydu ay sugnaanayaan oo aynan ka tagi karin minawi maalinta arafa nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalaam maalinta arafa ma min yawmin akthar من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة مال إلهي أكتيس أي كبدا يهين ضدك النار تلقى حرية متشر مال تعرف عذابك ضدك مال الحرية وحا أقبضا مال تعرفه ضدك إلهي أكتيس عذابك لقى حرية ووحوية مال كاس إلهي سبحانه وتعالى خلقه سوء دوانيا دنوا يليق بجلاله وعظمة سلطانه دوانشه إلهي جلالك سي عظمتي سأقلمه سدو يهينا أنه آنا أقونن بإلهي أسو دوانيا
markaa maasaa ilaahay malaa'igta ugu faanaya oo leeyahay fiiriya addoommadayda daafaha adduunkay ka yimaadeen ayagoo boor lahoo basaasan markhaati waxaan ka noqotaan inaan dembigoodii dhaafay hadday niyadda kaaga jirtay meeshaa Carafa inaad taagan tahay sanadkan oo sanadkii hore aad ku xisaabtamaysay caqabadna ay kugu timid niyadaadii wanaagsanayd ajarkeedii baa leedahay waxa aad rabtay inaad ku xajisidna masaakiinta iyo fuqarada si oo bixi masaajidda iyo khayrka ku dar khayrka uga qayb qaado ajarkaagiina waa leedahay sanadka dambe haddaa gaartidna aad ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu fududeeyo oo ay kuu sahlanaato nebigu wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam siyaamu yowmi carafa axtasibu calى allah an yukafira الsanaةa alatii qablah walatii bacdah ilaahay siyaamka yowma carafa aan soomayo waxaan ku ajar xisaabsanayaa ilaahay sanadkii hore dembigiisa inuu igu dhaafo midka ka dambeeyana ilaahay igu dhaafo ayaa soonka maalinkaas yowmu carafa aan waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala oga ajar xisaabsanaya maalmahaas qaaliga ah oo bishaa barakaysan ku dhex jira waxa weeyaan waxay u baahan yihiin qofku inuu ku talagalo inuu istighfaar iyo toobadkeen iyo khayr iyo wanaag ula yimaado waxaa la yidhi maalmahan iyaga ah ahlu cilmigu maxay adduunyada maalmaheeda ugu fadli bateen waa maalmo ay ku kulmi karaan ayaga dhexdooda soonkii iyo salaadii iyo sadaqadii iyo xajkii laakiin maalmaha kaloo adduunyada soonkii waa la heli karaa sadaqadii waa la heli karaa salaadii waa la heli karaa laakiin xajkii lama heli karo marka xajku asagoo intaas kala wata wuxuu ku jiraa maalmahan buu ku dhex jiraa walidaalika buu ibnu rajab alxambali wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmaddiisa iyo fadligiisa qof kaste oo mu'min ah qalbigiisu wuxuu u hiloobayaa oo jecel yahay sanad kaste inuu kacbada ilaahay tago ayaa qalbigiisu jecel yahay meel kastoo adduunyada ka joogo qalbigiisu wuxuu jecel yahay inuu ilaahay beydkiisa tago soo arko kuna soo cibaadaysto dadkii maadaama aysan wada awoodin ayaa qofkii awooday waxaa la yidhi adiga sanadkii hal mar buu kugu waajibay xajku tag noloshaada hal mar kugu waajibay waana awoodaa tag adiga asagii xagga markuu aaday inta ka hartay baa badan ayagiina waxaa la yidhi 10kaa maalmood waa 10ka waxaa laga dhigay adduunyada ugu fadliga badan xaajigii xaggu jooga adiguna gurigaaga adoo joogtid camalka aad samaynaysid wuxuu noqonayaa kan mujaahidku uu samaynaya mid ka fadli badan maadaama qalbigaagii xagga jiciyaha aadan joogin acmaal mudaacafaad ah oo fara badan oo laalaaban ayaa lagugu siinayaa maalmaha furaska laga faa'iidaysto maalmaha waxaa ka mid a qiraa'atu alqur'aan akhriska qur'aanka in aad loo badiyo oo qofku qur'aanka isku dayo in wax badan akhriyo waxaa ka mid a dikriga ilaahay takbiirta iyo tahliisha iyo taxmiidka inuu badiyo qofku laa ilaaha ila allah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah walaa xawla walaa quwata ila billah inuu ku celceliyo badiyo waxaa ka mid a asadaqa qofku inuu wax bixiyo oo sidii uu wax u bixin jiray si ka badan khayrkan uu labalaabo oo ku didaalo waxa weeyaan masaakiinta inuu quudiyo waxaa ka mid a asiyaam soonkii oo fadligiisu aad u weyni badan yahay kulligoodba soon 9ka soon ilaan maanta 10aad ma soomi kartidoo waa ciid soon lama ogola tan ka dambaysana waa ciid tan ka dambaysana waa ciid soonka marka waxaa soontaa maalmaha 9ka ilaa Carafa laga gaarayo soonka soon quraanka akhriskiisa badi sadaqada badi saaxiibada sooman afuri khayrka isaga ah wuxuu ku sahlahayaa adoo aan kacbada ilaahay tagin jihaadkiina aan gelin inaad yeelatay fadligii jihaadku uu lahaa mid ka weyn ilaahay kugu siiyo subxaanahu wa ta'aala ilaahay u toobadkeen wixii dambi ka dhacay
wixii xumaan ka dhacay maalmahan maalmo qaaliyo soo socdo weeye fursad iyo waqti si waqtigaaga kamida ilaahayna bari inuu ku waafajiyo subhanahu wa ta'ala إلهي سبحانه وتعالى هنا بركيه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين